السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برتان نقل الصوتان وأمانك تيوب برتان كلنا فيسبوك وعباس عرش حيرسي ما انتو حانين هنا شيكادي لما بحدي يكون يكوها بين قيبتي دي اللبات وحانا يدين سو جيدين دونا عنيقو عباس عرش شيكاداني وحينو مريسي قيبتي كواد مركي لودي بقر أركين وحبيرت قصرية كدعايا يهب دقن كفاشحون اي فكعين نايي قصري oo ay ugu horeyso naagtii boqor Shahriyaar markuu arkay waxa naagtiisa sameynaysa ayuu aqalgii ka duulay wuxuuna walaalkiisii ka yaraa ku yiri nabad walaalow aan meeshan isaga tagnay waxba uma baahnin boqortooyo ilaa aan ka soo aragno adduunkan in ay ku nool yihiin dad anagana la mid ah ama naga liitaan markaas ayuu ka ogolaaday kadibna labadoodii si wadajir ah ay u baxeen ayagoo qasriga qaab qarsoodi ugu baxeen waxayna safar ku jireen maalintii dambe ayay geed hoos fariisteen iyagoo daalan geedka wuxuu u dhawaa bad yaroo meesha ku taalay iyagoo meeshii ku nasanaya ayay badii hal mar kacday waxaana ka soo baxay wax aad moodo tiir weyn kaasoo cirka isku shareeray markay arkeen waxaan ay cabsi dareemeen ayagoo geedkii orod ku fuulay waxayna sii fiiriyeen waxaan badda ka soo baxay waxa badda ka soo baxay waa jinni aad u weyn aadna u dheer oo fiiro weyn wuxuuna madaxa ku xambaarsan yahay sanduuq weyn jinnigii sidii u soo socday wuxuu imaaday geedkii ay labadii boqor saarnaayeen markaas ayuu geedkii hoos fariistay wuxuuna furay sanduuqii weynaa markaas ayuu ka soo baxshay sanduuq kale wuxuu sii furay markaas ayuu wuxuu ka soo bixiyay gabar aad moodo xuural cayntii jannada quruxdeeda aad yaabayso sidii dayaxan u ifayso markaas ayuu jinnigii gabadhii ku yiri boqoradii xorta aheeday waatana ku soo afduubtay habeenkii aqalgalkaagii waxaana rabaa hadda inaan xoogaa yar seexdo markaas ayuu dhabta intuu madaxa saartay ku dul seexday markaas ayuu dhabteeda intuu madaxa saartay ku dul seexday gabadhii ayadoo meelaha fiirinayso ayay waxay intaheeda qabteen labadii boqor ee geedka saarnaa markaas ayay madaxii jinniga intay dhabteeda ka qaaday dhulka dhigtay kadibna u soo jeesatay dhankii labadii boqor ay u ishaartay inay soo degtaan markaas ayay dhaheen jinnigan cirfiidka ayaan ka baqaynaa markaas ayay ku tiri soo dega haddaydan soo degin cirfiidkan ayaan soo kicinaya markaas ayay cabsadeen wayna soo degteen markay soo degteen ayay ku tiri labadiina waxaan idinka rabaa inaad ila tumataan oo ila raaxaysataan balse way ka diiday hase yeeshee waxay ugu hanjabtay inay jinniga soo kicin doonto oo u sii xun u dili doono markaas ayay waxay rabtay u sameeyeen markay hooshii dhameeyeen ayay waxay jabkeeda ka soo bixisay kolay yar waxaana ku jiray in ka badan 570 waraanti markaas ayay ku tiri ma garanaysaan waxaan waxay yihiin waxay dhaheen maya ma garanayno markaas ayay ku tiri jinnigan aad u jeedaan wuxuu isoo afduubtay habeenkii aqalgalkayga wuxuuna igu xiray sanduuq asagoo ku sii xiray 7 quful wuxuuna igu riday badda moolkeeda si uu iiga ilaaliyo wax nin ah sidaas oo ay tahay waxaan la duntay dhammaan nimankii faraantiyaashan leh ee idinka isiiya faraantiyaashiina labadii boqor markay hadalkaas maqleen aad ayay u yaabeen waxayna isku dhaheen hadiiba cirfiidkan san u weyn oo gabadhan san u ilaalinayo ku dhaceen wixii annagana ku dhacay wax ka daran waa arrin cajiib markaas ayay labadii oo yaaban degdeg meeshii ugu soo tageen waxayna ku soo laabteen boqortooyadii boqor Shahriyaar oo aad u xanaaqsan ayaa yimid qasrigii wuxuuna amar ku bixiyay in la soo qabto naagtiisa jaajadii iyo adoomihii la tuntayba waana la soo qabtay iyagoo dhammaantoodba korka laga wada gooyay intaas kuma ekaanin boqor Shahriyaar wuxuu amar ku bixiyay in habeen kasta gabar cusub loo guuriyo subaxiina korka laga gooyo wixii sidaas xaalku ahaaba muddo 3 sano kadib waxaa la soo waayay wax gabar ah oo gabadhii waxay isku bedeleen waxa la dilay iyo wax cararay wasiirkii u qaabilsanaa boqorka dhanka guurka maalintaas markuu soo waayay wax gabar ah oo u dhiso ayuu gurigii yimaaday asagoo aad u murugaysan wasiirkaas wuxuu dhalay 2 gabdhood oo aad u qurux badan mid weyn waxa
waxaa la dhihi jiray Shahrazad midda yarna Dunyazad. Midda weyna ee Shahrazad waxay ahayd gabar mutacalimad ah oo wax badan ka taqaano kutubta taariikhda iyo sheekooyinkii boqoradii hore iyo wararkii ummadihii horeba. waxaana la sheegay in gabadhaas Shahrazad oo ay baratay in ka badan 1000 kitaab oo ku saabsan taariikhda iyo sheekooyinkii horeba. Shahrazad waxay ahayd gabadh aad u caqli badan, waxayna aragtay aabaheeda oo wajigiisa murugo ka muuqato. waxayna ku dhahday, aabow maxaa kugu dhacay oo aad sidan ugu murugsan tahay? markaas ayuu wasiirkii gabadhii u sheegay siday wax u jiraan. wuxuuna yidhi, waxaa la iga rabaa inaan caawo boqorka gabadh u soo dhiso, haddaan u soo dhisi waayana korka ayaa laga goynayaa. markaas ayay Shahrazad aabaheed ku dhahday, aabow aniga ii guuri, laba mid ayay noqonaysaa, in la ii dilo ama in aan madax furasho u noqdo gabdho badan oo muslimiin ah oo halaagsami lahaayeen. markaas ayuu wasiirkii yidhi, waan kuu cabsanayaa ee naftaada halis ha gelin aabow. markaas ayay tiri, waan ku khasbanahay sidaas oo waa laga maarmaan ee ii guuri aabow. markaas ayuu wuxuu ku yidhi, waxaan ka cabsanayaa inay kugu dhacdo wixii ku dhacay dibigii iyo dameerkii uu ninkii beeraleyda lahaa. markaas ayay tiri, maxaa ku dhacay aabow? halkaas haynoo joogto qaybtii labaad sheekadii la magabaxday Kun iyo Kow Habeen. fadlan saad ugula socoto qaybta labaad YouTube-keen ha ka iloobin subscribe, hana iloobin inaad gabalka furato si aad ula socoto qaybta xigta. hana iloobin inaad booqato bartaan ku leenahay Facebook oo ah Cabbaas Culus Xirsi. mahadsanidin.